بسم الله الرحمن الرحيم نبض وضيال وكلن كلا يتحنيه نبي جوداج كلن كان بوجا إن كسر قاعدين واحد اللي هذا the real politics of the Horn of Africa واحد قراءة ألجس دوال ألجس دوال وقراءة علم بارة غير إنجليز waxa uu qoray in ka badan 10 book inta badan uu ka qoray siyaasadaha iyo wadamada Afrika Alex Dawal wuxuu ku takhasusay siyaasadaha Afrika buugan waxa inoo falanqayn doona oo inala wadaagi doona Sahra Cabdiraxmaan Axmed Sahrakiin iyo Yaasiin Cabdillaahi ku soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم بوغ لا يراهدو The Real Politics of the Horn of Africa Money War and the Business of Power siyaasadda dhabta ay ka jirta geeska Afrika ay saameynta ku leeyihiin dagaalada ganacsiga siyaasadda awoodaha kala duwan iyo sidoo kale lacagtu waxa qoray Alex Dawal oo ah qoraa iyo cilmi baadho reer Britain 7 jira oo wax ka qora siyaasadda Afrika وأقاسمها the World Peace Foundation sidoo kale wuxuu in badan ka qoray xiriirka ka dhaxeeya faqrinimada dawladnimada iyo AIDS-ka waana aasaasaha commissionka AIDS-ka iyo dawladnimada ee qaaradda Afrika sidoo kale waa professor dhiga culumta diblomaasiyadda iyo shuruucda buugani maaha kii ugu horeeyay wuxuu qoray buugaag badan oo ay ka mid tahay famine crimes politics and disaster relief industry in Africa wuxuu qoray Darfur a short history of long war African arguments wuxuu qoray religion and nationalism in Iraq ayuu qoray buugiisan The Real Politics of the Horn of Africa wuxuu ka kooban yahay 12 chapter marka laga yimaado chapterka koobaad labaad saddexaad 11aad iyo 12aad inta kale wuxuu kaga hadlayaa chapterka afaraad ilaa sagaalaad cutubiyadaas wuxuu kaga hadlayaa Darfur, Sudan, South Sudan, Somalia, Somaliland, Eritrea, Ethiopia. Hordhaca buugga wuxuu kaga hadlayaa siyaasadda dhabta ah ee geeska waxay ku salaysan tahay sida ka ganacsiga siyaasadda wadamadan ay dagaaladu ragaadiyeen waa taariikh casriyeysan sida siyaasiyiin badan oo Afrikaan ah oo wadamada hogaamiya generaalo iyo kacdoono ugu gorgortamaan lacag iyo awood si ay ugu isticmaalaan dagaal si ay u gaadhaan ujeedooyin gaar ah iyagu leeyihiin qoraaga Alex Dawal wuxuu 30 sano ka shaqeynayay wadamada Sudan, Ethiopia, Eritrea iyo Somalia wuxuu chance u helay inuu ka qayb galo kulamo badan oo heerkoodu sareeyo oo dhexdhexaamidiyo iyo nabad dhisid lagaga hadlayay wuxuuna sheegayaa sida ay hogaamiyaasha wadamadaasi ay u maamulaan wadamada sida ay uga ganacsadaan sida ay u sameystaan awood mararka qaarna sida u sameeyaan maxaa la yiraahdaa nabadgelyo ay u sameeyaan wuxuu muujinayaa in hogaamiyaashaasi u shaqeeyaan qaab ganacsi iyagoo ka dhigaya mas'uuliyadooda miisaaniyadooda mid siyaasadeed si ay ugu adeegsadaan dagaalo ay ugu maalgeliyaan maleeshiyaad qabaa'ilo iyo xisbiyo suuqa siyaasadda marka waxay taasi ku tusaysaa suuqa siyaasadda inuu baabiyo hay'adihii dawliga ahaa iyo hawlgalkii dawladnimo sidoo kale waxa saameyn leh dhoofinta saliidda gargaarka ay beesha caalamka wadamada ay siiso la dagaalanka argagixisada waxyaabahaas oo dhan saameynta ay ku leeyihiin iyo lacagaha kala duwan ee soo gala ay ku leeyihiin wadamadaas inay xasilaan nabad ay gaadhaan ayuu hordhaca buugga kaga hadlayaa buuggan marka la eego geeska Afrika oo ah meel istiraatiijiya ee beesha caalamkuna ay dana badan ka leedahay haddana xogta dhiibka ah ee ninka inta badan ka soo shaqeynay u kurgalay geeska Afrika iyo wadamadaas wuxuu sheegayaa buuggan waa buug xanaf iyo saameyntiisa leh haday noqoto xidhiidhada caalamiga ah horumarinta iyo nabad kordhashada geeska Afrika iyo wixii ka dambeeyaba saameyn fara badan buu ku leeyahay oo wuxuu daaha ka qaaday ayuu feedayaa sida hogaamiyaasha wadamadaasi ay u sameystaan budget miisaaniyadeed political budget la yiraahdo si ay ugu gaadhaan dana gaar ah dagaalo ay ugu horiyaan mararka qaarna ay tusaan sawir ah buugu markaa wuxuu sheegayaa in badan siyaasadda muuqata ama media laga hadlo maaha inuu wax ka doonay meesha ku jirto iyo in markasta dana gaar leeyihiin tusaale oo kale shirkii May 2006 ka dhacay Abuja Nigeria ee lagu dhexdhexaadinayay Sudan qaabka ay maxaa la yiraahdaa iyadoo miiska wax kale lagaga wada hadlayo haddana daaha dabadiisa dhaqaale iyo gorgortan lacag qayr caadiya
lagu kala helayo hadhow marka wadamadii lagu noqdana dagaal iyo rabshado loo abuurayo si auna naaskaas u gurin oo dad badan lacag iyo dhaqaale fara badan ay ka samaystaan tusaale ahaan chapterka afraad ee buugga wuxuu kaga hadlayaa Darfur inay noqotay xarun lagu xaraasho daacadnimada iyo is-aaminaadda inay suuq siyaasadeed lagu tartamo ay noqotay iyadoo saameyn ay ku yeelatay 2003 dagaalkii ay Suudaan ku qaaday wuxuu ka hadlayaa chapterka afraad Suudaan buu kaga hadlayaa sida siyaasiyiinta Suudaan ay u qaabiyeen jiilka iyo aqoonta miisaaniyadana ay ku saleeyeen hanaanka muddada dheer ee burburinaya hay'adihii hanaankii dawladnimo chapterka lixaad wuxuu kaga hadlayaa South Suudaan koonfurta Suudaan iyo sida hogaamiyaashoodu u ragaadiyeen saameynta ay ku yeelatay saliidda la dhoofinayo maalgelinta ay ku sameeyaan maleeshiyooyinka iyo sidoo kale inay ogolaadaan musuqmaasuq fara badan inuu ka dhaco allagas buugan uu qolay The Real Politics of the Horn meelaha uu sida caqaybada la uga hadlay waxa kamid ah amuuraha Soomaalida marka hore waxaynu wax yar ka sheegi doonaa waxa uu ka yiri Somaliland waxa uu qoraha buugu ka hadlayaa Somaliland markii ay dib u yeegleeshay xorriyadeedii ay dib uga soo noqotay Soomaaliya sanadkii 1990 ee dawlad shaqaynaysana ay samaysay laba cahdi oo ka dambeeyay inkastoo ictiraaf caalami ah aanay dunida ka helin laakiin haddana waxay samaysay maamul shaqaynaya oo doorashooyinka lagu tartamo waxyaabaha tusaalaha uu soo qaadanaya waxa kamid ah doorashadii dhacday April 2003 oo Axmed Siilaanyo laga helay inkastoo 675 kun ay ku dhawaayeen dadka codeeyay haddana tiro 80 coda ayaa go'aamisay Siiraanyana wuu aqbalay ka guuleysigii Daahir Riyaale Kaahin uu ka guuleystay taasoo u sahashay 2010kii markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtooyada ka dambeysay in Daahir Riyaalana si habsami iyo caqayba leh uu xilkii ugu wareejiyay taasina ay sii dhiirigelisay dadka reer Somaliland ee madaxdii inay xilalka isku wada wareejiyaan waxay doonaan baa ka helaan dadka reer Somaliland oo qoruhu ku tilmaamay 3 milyan iyo badh haddana waxa uu ku sheegay inay sameeyeen wax badan oo ay kaga duwan yihiin geeska Afrika wadamadan uu daraaseeyay ee Suudaan iyo South Suudaan ay dhinaca ugu xigaan dhinacan kalena Soomaalida iyo Ethiopia iyo Eritrea ba ay kamid yihiin waxyaabaha uu sheegay Somaliland waxa kamid ah in markii Somaliland la aasaasay tiro yar oo kamid ah aqoon-yahanada siyaasadda bartay waliba kuwa gaar u sii bartay ku takhasusay comparative politics ka waxaan la yiraahday siyaasadda isbarbardhigu inay aad iyo aad ugu dhigeen inay Somaliland aad u daraaseeyaan ay aad u eegaan waxa ka soo baxaya xilligaas oo kala laasa ballaadhin uu ka jiray koonfurta Soomaaliya laba sababood bay dadkani kala haayeen dhinaca waxay ahayd taxliil ay sameeyeen iyo analysis ay sameeyeen dhinaca labaadna waxay ka ahayd advocacy iyo taageerayeen oo ay lahaayeen waxa suuragal meel qabyaaladi ka jirto dadku hanaan qabiil ay u dhisayeen haddana in dawlad shaqaynaysa laga sameyn karayo waxay dadka aqoon-yahanadii aad iyo aad u dhaliili jireen qaramada midoobay iyo hanaankii UNICEF bariga jiray sababta ugu weyn ay u dhaliilayeen wax kala ma ahayn waxay balay cijaab uga noqonayeen inaanay kuwaasi burburin Somaliland oo waxay wadaan wax ka soo horjeeda wada halka iyagu ay ka wadeen nidaam xagga sare ka soo degayo top down layda oo marar dambe aynu ka hadli doono marka amuuraha Soomaalida aynu gallo inay Somaliland xilliga ka socotay wax bottom up uu bixiyay oo hoosta ka soo dhismaya iyo base ka hoose taana ay doonayeen in fursad la siiyo oo UN-ku inuu burburiyo laga ilaaliyo laakiin haddana marka la eego Somaliland waxa ay samaysatay xilliga waxay ku jireen qalalaase waxa quro jirena waxay ahayd inay shaqaynaysay xilli Soomaaliduna qalalaase ka sii qariban ay ku jirtay qoraagu waxyaabuhu xusaya waxa kamid ah in Somaliland shirki booramo oo kale uu ahaa meel la isxadidayay farsamo lagu darayay la intimidate gareynay haddana waxa soo dhan oo jira dadka aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta iyo dadka militariga dhamaantood ay isugu tageen waxa uu halhay isu soo qaadanaya Umar Carte inuu lacag aad u fara badan isticmaalo Sacuudiga faqreynay oo marka midna inankiisu uu qaybtii u dambeysay keenay laakiin haddana lacagta iyo Umar Carte xamartii uu ku soo koray oo siyaasadeeda ka qayb qaatay lacagtu shaqaynaysay halkan inay ku shaqayn weeyday wuxuu tusaale u soo qaadanaya erey laga guntay Xaaji Cabdiwaraabe Ilaahay u naxariisto uu yiri anagu lacagtiisii waanu xadnay laakiin isagu maskaxdayadii wuu xadi kari waayay Umar Carte
waxa uu soo qaadanaya dagaaladii sokeeye ee Somaliland ka dhacay 94 iyo 95 iyo sida wixii la filayay wax ka soo horjeeda ay u saareen. waxa kamid ah nin la yiraahdo dadka wax ka qoray Dominic Palatzar. ninkaas wuxuu aaminsanaa dagaalkii 94 iyo 95 dhacay Somaliland ka dhacay inuu ahaa masiibo weyn oo dawladda ku ahaa, laakiin haddana waaqicu wuxuu ahaa dawladdu muraad muhiim oo ay lahayd ayuu u xaliyay. waxa kaloo iyana uu aaminsan yahay aqoonyahankaasi in theory-gii Charles Taylor la oran jiray ee ahaa dagaalku inuu sameeyo state-kuna uu sameeyo dagaal inay Somaliland ka ay dabaqday. inkastoo Somaliland ay ka dabaqday la oran karo way dabaqday, laakiin haddana South Sudan iyo Soomaaliya uu ka soo saari waayo taa way fulin kari waayeen. waxyaabo kale oo ka hadlaya waxa kamid ah aqoonyahankani amuuraha Soomaalida iyo sidii ay u murgeen. waxa uu dhaliil u soo jeedinaya inaan dagaalka Soomaaliya iyo dhibaatada dhacday aanay 1990kii ka bilaabmin, laakiin ay ka bilaabantay 80kii iyo 70kii. waxyaabo kale oo xusaya waxa kamid ah Soomaaliya inay 89kii iyo wixii ka horeeyay sanadadii ka horeeyayba warbixin World Bank oo tusaale u soo qaadanayo in dhaqaalaha Soomaaliya ka soo bixay miisaaniyadeedu kaliya ay kari jireen adeegyada guud iyo ciidamada waxa ku baxaya. laakiin Soomaaliya waxa inta badan lagu qarash gareyn jiray 200 milyan oo qaxoontiga la siin jiray sanadkii. 75% kamid ah maleeshiyaadka iyo ciidamada ayaa la siin jiray. lacagta beeraha loogu talagalay in lagu horumariyo waxa qaadan jiray saraakiisha militariga iyo kuwa kale civil-ka ah, iyagoo dhulkana ka qaadi jiray dhulka fertile-ka ee wax laga beeri karana dadka ka qaadi jiray. dhibaatada masiibadiina waxay bilaabantay xilli aad uga horeeyay xilliga burburku dhacay. waxa kale oo uu dhaliil u soo jeedinaya aqoonyahankani wixii dhacay sida loo xalinayo. waxa uu ku tilmaamay wadanku inuu ahaa rentier state, waxa uu bixiyo wadankiiba la kireynayo wadamo kale kira laga qaadanayo. Ruush baa baxay, Mareykan baa loo bedelay oo rentier laga qaadanayo. dabeetana kiradii uu bixinayay iyo loyalty-gii uu iibsanayay Maxamed Siyaad Barre inuu iibsan kari waayay markii lacagtii yaraatay ee deeqeynaysa soo qoreen. inkastoo markii dambe Mareykankuna uu lacagtii ka gooyay goor dambaba ha ahaatee oo ilaa 89kii hub iyo lacagba uu siinay. marka daacadnimadii uu iibsan kari waayay lacag uu ku iibsado uu waayay ayuu u sababaynayaa inay burburisay Soomaalida. waxa kale oo uu sababaynaya qabyaaladii maamulka dhex gashay. waxa uu ka hadlaya marka qodhay Soomaaliya qaran dhiskeeda la isku dayay in si ka duwan sidii hore loo maraa inay ahayd markii maxkamadaha taana inaan fursad la siino Ethiopia iyo Mareykanka iyo dawladda badan inay ku soo duuleeno ay ciidan ku qabsadeen. intii ka dambeysayna sida wax loo wada Soomaalidu si dawladdiisa inaanay ahayn sida ugu sahlan loo dhisi karay laana inay ahayd wadada Somaliland inkastoo ay kala duwan yihiin. inahaasa ugu badan waxa uu sheegay. buugani waa buug mudan in la akhriyo isla markaana ka warramaya deegaankeena iyo waaqiciina. kulankani waxa xiritaan u ahaa gugii koobaad ee buug wadaag. waxaan ugu talagalnay madal intan ka ballaaran balse saameynta uu yeeshay xanuunka dunida ku baahay ee coronavirus awgi waxay noqotay in kulan kooban samaysano oo duubis kaliya ah. waxaan idinku boorinaynaa inaan u hogaansano shuruucda iyo qawaaniinta iyo nidaamyada ayna farayaan wasaaradaha caafimaadka iyo wadamada aynu ku noolahay si aynu uga badbaadno saameynta xanuunkani leeyahay. inta aynu kulan xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa buug wadaag waa adduun wadaag. hoyga agabka waxbarashada iyo buugaagta ee Hema Books. Hema Books waxaad ka heli kartaa agabka waxbarashada noocyadooda kala gedisan, buugaagta dugsiyada barbaarinta hoose dhexe ilaa sare, agabka shaybaariyada sayniska iyo guud ahaanba buugaagta akhriska guud oo ku qoran Soomaali, Ingiriisi iyo Carabiba. soo buuqo Hema Books oo baahi tir maskaxdaada.